Portugal waa mid ka mid ah waddamada ugu caansan qaaradda Yurub, waxa uuna leeyahay taariikh iyo xadaarado aad u fog. waana waddan dhaca koonfur galbeed qaaradda Yurub, gaar ahaan waxa uu ku yaalaa jasiiradda Andalus ama Alberia. muuqaalkanna waa mid ka mid ah muuqaaladii aan uga hadli jirnay xaqiiqooyinka daasoon ee dalalka caalamka. magacaygu waa Cabdiraxmaan Siciid, halkanina waa kanaalka Ilayska Dunida. haddaba ku soo durka oo ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta oo aan sahan ugu nahay dalka Portugal. Alfonso Henriques waxa uu ahaa boqorkii ugu horreeyay ee xukuma dalka Portugal, taariikhduna ay ahayd 1139 miilaadiga. nidaamka iyo sharciyada uu qoray boqorkan, shacabka Portugal waxa ay raacayeen muddo dhan 800 oo sano. waxyaalihii hore ee ka soo haray boqortooyada Portugal waxaa ka mid ah magaalada Lisbon ee hadda caasimadda u ah Portugal. magacii hore ee loo aqoon jiray oo ahaa Lisbon waxayna ahayd caasimaddii hore ee boqortooyadii Roomaanka, waxayna caasimad u ahayd muddadan 4 qarni. sidoo kale waxaa lagu tiriyaa magaalada Lisbon caasimadda labaad ee ugu qadiimsan qaaradda Yurub. waddanka Portugal waxa uu ka mid yahay waddamadii ugu horreeyay ee tirtira sharciga ka dhanka ah maxaabiista xabsiyada ku jirta, loona geysto ciqaabta aadka u daran iyo jirdalka ka dhanka ah booliska. waxa ayna sharciyadan soo wadeen 24 sano. Portugal waa waddankii ugu horreeyay ee samaysta ciidan badmaaxayaal ah. sidoo kale waxa ay lahaayeen khubaro dhanka xeebaha ah, kuwaas oo ku takhasusay waddooyinka loo maro badda. waxa ayna sameeyeen waddooyin ilaa iyo hadda la isticmaalo, waxaana ka mid ah waddada loo yaqaano rajadii wanaagsanayd, taas oo marta xeebaha waddamada qaaradda Yurub. Vasco da Gama waa ninkii ugu horreeyay ee sameeyey waddada isku xirta qaaradaha Yurub iyo Afrika. sidoo kale waxa uu jeexay waddooyin ay maraan maraakiibta, kuwaas oo isla goosha labada qaaradood. luqadda Portugal waa luqad baaxad weyn, waxaana ku hadla 10 dal, waxaana ka mid ah waddamadaas Portugal, Brazil iyo waddamo kale oo dhaca koonfurta qaaradda Yurub. dadka ku hadla luqaddan waxa ay gaarayaan 230 milyan oo qof, waxa ayna ku jirtaa waddamadii ugu waaweynaa ee wax soo gumaystay. waxa ayna ku guulaysteen inay faafiyaan luqadda Portugal oo ilaa maanta looga hadlo waddamo badan oo ku yaala caalamka, waana luqadda 9aad ee ugu saamaynta badan dunida. Cristiano Ronaldo waa ciyaaryahanka ugu taageerada badan caalamka, waxa uuna ka soo jeedaa waddanka Portugal. sidoo kale waa ciyaaryahan saameyn weyn ku leh qaaradda Yurub, waana ciyaaryahanka ugu goolasha badan waddanka Portugal. Cristiano Ronaldo hadda waxa uu u ciyaaraa naadiga Juventus oo ka dhisan waddanka Talyaaniga. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkeenna maanta. fadlan haddii uu ku cajiyo muuqaalkan, like saar. haddii aadan ku soo biirin kanaalkana, hadda ku soo biir oo subscribe dheh, siina sheergare oo gaarsiiya asxaabtaada ugu yaraan 1 qof. waxaana idinkaga tegaynaa saaxiibayaal, sidaas iyo nabadgelyo.